laba qof ayaa lagu dilay mid kalena si daran ayaa loo dhaawacay midiyeyn ka dhacday koonfur galbeed ee dalka Jarmalka sida ay sheegeen booliska dalkaasi. Qofka lagu tuhumayo weerarka oo la sheegay inuu yahay Soomaali ayaa la xiray kadib markii ciidanka booliska Jarmalka ay goobta tageen ayna shakhsigaasi dhaawaceen. booliska ayaa sheegay in lagu soo wargeliyay toogasho ka dhacday duleedka magaalada sidaasna ay u baxeen waxaana la ogeyn sababta uu ninkaasi weerarka u geystay. Tuhunsanaha oo ah muwaadin Soomaali ah ayaa markii hore ka baxsaday goobta uu weerarku ka dhacay balse waxaa laga soo xiray dukaan dawooyinka lagu iibiyo. booliska ayaana rasaas adeegsaday intii lagu guda jiray bulshada waxayna si daran u dhaawaceen tuhunsanaha balse dhaawaca ayaa ah mid naftiisa aan halis gelinayn sida ay boolisku sheegeen. booliska ayaa goor dambe sheegay in dhibanayaasha la dilay ay yihiin laba nin oo Jarmal ah oo da'doodu u dhaxayso 20 ilaa 35 sano jir. qofka kale ee dhaawaca ayaa ah muwaadin Jarmal ah oo da'diisu tahay 27 sano. lama sheegin magaca dhibanayaasha iyo sidoo kale magaca qofka Soomaaliga ah ee weerarka lagu tuhumayo. booliska ayaan wali sii deyn xog intaasi dheer oo ku saabsan weerarka iyo sababta ku qasabtay tuhunsanaha inuu geysto weerarkaasi waxayna sheegeen in dib u soo gudbi doonaan natiijada. waa weerarkii labaad oo dhimasho leh oo wax ka badan sanad gudihiisa uu qof Soomaali ah ka geysto wadanka Jarmalka. ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay 10 kalena si daran ayaa loo dhaawacay weerar loo adeegsaday mindi oo 24 jir Soomaaliya uu geystay 26 Juun ee sanadkii 2021